bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan idilkiinba ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka telefishinka caalamiga SBC oo wakhtigan idinkaga imaanaya istuudiyihiisa koowaad ee magaalada Boosaaso qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa shaaciyay in magaalada Muqdisho uu ka furmi doono shirka higsiga cusub wasiirka wasaaradda amniga Puntland oo ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay taliyaha saldhigga bariga ee magaalada Garowe howlgallo hub lagu aruurinayo oo ka bilowday magaalada Cabudwaaq ee xarunta gobolka Galgaduud wafdi uu hogaaminayo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ah gudoomiyaha guddiga badbaadada dadka ka soo laabanaya dalka Yemen ee fadhigoodu yahay Muqdisho oo maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan uu weheliyo taliyaha saldhigga booliiska magaalada Beledweyne oo booqday rugta booliiska xaafadda hanti wadaag ee magaalada Beledweyne dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal oo soo dhaweeyay martigelinta tartanka kubadda cagta ee gobolada Somaliland qodobada wararka dibadda aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah wiil uu dhalay madaxweynihii hore ee dalka Liibiya Muammar al-Qaddafi oo lagu xukumay dil toogasho daawadayaal intaas waxay hayeen qodobada ugu waaweyn wararka telefishinka SBC oo idin hayo haatanna ku soo dhowaada warkii oo fidsan markale kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan afhayeenka dawladda federaaliga Soomaaliya ayaa shaaciyay in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya uu ka furmi doono shirka higsiga cusub wariyaheena Cabdirasaaq Cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan ee Muqdisho nooga soo diray afhayeenka dawladda federaalka Soomaaliya Daawud Aweys ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta madaxtooyada waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen in maalinta berito ah uu ka furmi doono magaalada tan Muqdisho shir heer caalami ah oo looga hadlayo arrimaha higsiga 2016 iyo horumarka dalka Soomaaliya kaas oo ay ka qayb gali doonaan wadamada iskaashiga la leh dawladda Soomaaliya hay'adaha caalamiga dawladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira shirkan jaraa'id waxaan isugu keenaynaa inaan idin la socodsiino in magaalada Muqdisho berri uu ka dhici doono shir heer sare ah oo wadamada iskaashiga la leh hay'adaha iskaashiga la leh Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliya maamulada dalka ka jira ay ku yeelan doonaan magaalada Muqdisho waa shirka loo yaqaano HLPF ama High Level Partners Forum oo la isku dhaafsan doono arrimo la xiriira higsiga 2016 iyo barnaamijyada horyaala dawladda sidaad wada ogtihiin waxaa jira shir hore uga dhacay Copenhagen oo looga hadlayay arrimaha Soomaaliya dib u dhiska ku saabsanaa siba dhinaca siyaasadda arrimaha amniga dhaqaalaha iyo dib u soo nooleynta ama dib u soo kabashada dhaqaalaha marka shirkan berri waxaa lagu eegi doonaa shirkaas ka dhacay Copenhagen waxyaabihii qabsoomay waxa aan weli qabsoomin waxa hirgeli kara ama la dhameystiri karo sanadkan 2015 si sanadka dambe marka la gaaro 2016 loo hayo barnaamij dhameystiran oo markaas muujinaya talaabooyinka la qaadayo ee ugu dambeyntii horseedi doona in dalka doorashooyin ay ka dhacaan sidoo kale waxa uu afhayeenku soo hadal qaaday shir ay madaxweynayaasha dawladaha Soomaaliya iyo Kenya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Uhuru Kenyatta ay ku yeelan doonaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya qodobka labaad aan soo jeedinayo wuxuu ku saabsan yahay shir ka dhici doona magaalada Nairobi oo yeelan doonaan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya
waxaa shirkaasi looga hadli doonaa iskaashiga u dhexeeya labada dal gaar ahaan heshiis hore u dhexmaray Soomaaliya iyo Kenya sanadkii 2005 oo dhigaya in labada dal ay iska kaashadaan dhinacyada amniga, iskaashiga dhaqaalaha, ganacsiga, dib u soo nooleynta hay'adaha maamulka ee Soomaaliya iyo waxyaabo la mid ah. waxa kale oo shirkan jaraa'id waxyaabaha ugu muhiimsan aan kaga hadlayna kamid ah arrimaha amniga gudaha oo dhawaan dawladdu ay dah furtay barnaamijka isku dhafka ciidamada qalabka sida oo qaybtii ugu horeysay laga soo bilaabay magaalada Kismaayo ilaa 1350 askarina ay qayb ka yihiin barnaamijkaas isku dhafka ciidamadaasi isku dhafka amaba loo sameeyay Soomaaliya waa ciidankii xoogga dalka Soomaaliya oo hore u lahaan jiray oo markaasi awood u yeelan doona inay ka howlgalaan qayb kasta oo dalka Soomaaliya kamid ah iyadoon loo eegi doonin qayb gaar ah oo ay ka yimaadaan oo meesha ka soo jeedaan balse ay wataan magaca qaranka Soomaaliya ugu dambeyntiina markii la soo dhameystiray dhismaha maamulka Galmudug oo dhawaan la caleema saaray madaxdii maamulkaasi waxa dawladdu dhawaan ay guud gali doontaa maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Cabdisaaq Cabdulqaadir telefishinka caalamiga ah SBC Muqdisho. xukuumadda iyo baarlamaanka dawladda federaaliga Soomaaliya ayaa isku raacay in sanadda 2016 oo doorasho qof iyo codkiisa uu guud ahaanba Soomaaliya ka qabsoomi karin. Cabdirasaaq Cabdiqaadir ayaa warbixintan mar kale Muqdisho nooga soo diray. kulan ay xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ay yeesheen ayaa waxa lagu shaaciyay go'aan ay si wada jir ah u gaareen labada gole ee dawladda iyadoona kulankaasi uu baarlamaanka ku hor yimid ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ay wehelinayeen qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. kulankan oo shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxa khudbada ka jeediyay ra'iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka oo xildhibaanada khudbad kooban ka hor jeediyay ayaa waxa uu yiri arrinta hadda aan ka tashanay ee qodobada nooca ah inaan hadda ku shaqeynayno hadda waa saddex qodob oo ka shaqeynayay dawladda oo hal qof maadaama sidaas ay kaga in wada tashi gadiyo labada mudan ee hay'adda suubiga saddex in wada tashigaas lagu soo gunaanado sanadkan intaas dawladda aanu cadeyno meesha caalamka iyo waddan Soomaaliya meeshii laga aaday halada waxa weeye waqti xasaasi ah markaa runtii waxa aan ku mari karnaa ku noqon karnaa siyaasadda toddobaadle aan ku hayna markii loo gudbintii ugu socdaan waa kuwan qaar ka mid ah xubnihii baarlamaanka ee ka soo qayb galay kulankaasi oo halkaasi ka hadlay. guddiga la sameeyay mandatekiisu wuxuu ahaa maalinta inuu hor keeno baarlamaanka wuxuu soo qoro shaqadiisa halka ku dhamaato taa in la cadeeyo maano waxaan soo dhexgelinaya inay masiirka baarlamaanka ilaa 2016 wadayaan ka waxaan rabaa inaan ku cadeyso gudoomiye waxaan leeyahay caawa iyo bari shaqooyin jiraan haddii maanta logo oo lagu daro badbada shaqada dhammayd gabagabadiina gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa soo xiray kulankaasi. waxaan isku raacsanahay ama la ogyahay xukuumadda ay Soomaaliya waqtiga soo yahay 2016 Agoosto waxaa kaloo ognahay dastuuriyan baarlamaanka madaxweynaha ilaa dhammaan wixii jira doonta eegana ugu dambeyn September 10-keeda waa laga dhamaaday xikmadda loo baahan yahay waxay tahay la qaban karo waa yani baarlamaanka waa inuu soo gudbaa baarlamaanka la doortay waa qodobada dastuurka in ixtiraam waa laakiin xildhibaanana siyaasiyiin nahay goladan aan nahay oo qarabeed waxaan looga baahan yahay haddii barnaamijkiiga dhammaado yani wadash dadkii aan uga dhammaado. Cabdirasaaq Cabdulqaadir Maxamed SBC Muqdisho. wasiirka wasaaradda amniga dawladda Puntland ayaa magaalada Garowe uga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay ee baaw naxariiste taliyihii saldhigga bariga ee magaalada Garowe. Maymuun Cabdirasaaq Khaliif ayaa warbixinta warkani magaalada Garowe nooga soo dirtay. عفوا لي مسابح نقول إنه
iscafino dad walaalaha islaamka sunniga wana caf alle masaabax rabbi ha u raxmadee waxaa maanta magaalada Garowe asqaran loogu sameeyay taliyihii saldhigga bari ee Garowe Siciid Bagastaan Bulshaale oo habeen hore dhaawac ka soo gaaray shaqaaqa ka dhacday agagaarka wadada Dr. Jimcaale aaska marxuumka waxaa ka qayb galay wasiirka amniga Puntland wasiirka caafimaadka taliyayaal ciidan culimaa u diin qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan Garowe iyo helada marxuumka kuwaasi oo Rabbi uga bariyay inuu jannadiisa firdawsa ka waraabiyo una dambi dhaafo wasiirka wasaaradda amniga dawladda Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in ciidanku gacanta ku hayaan dadkii ka dambeeyay falkaasi isla markaasina sharciga la hor keenayo wuxuuna sidoo kale sheegay wasiirka in baaritaano lagu wado haweenuu sheegay in loo soo qabtay falkaasi wasiirka ayaa sidoo kale tacsi tiiraanyo loo diray ehelada qaraabada iyo shacabka Puntland ee uu ka geeriyooday marxuumka wuxuuna ugu duceeyay inuu samir iyo iimaan ka siiyo jannada firdawsana uu ka waraabiyo kiiskaanu kiis cad wey kiis mugdi ku jiro ma aha ciddii ninka allah u naxariisto dishay sargaalka iyo ciddii gacan siisay iyo meeshii fidmadu ka dhacday intaba gacantaa lagu hayaa meeshii fidmadu ka dhacday waad ogtihiin waa bandowo ilaa 20 dumar ah oo meeshii fidmadu ka dhacday ayaa xiran kiiska marka sababaha loo xiray arrintaa wey xabsiga saldhigga hadda ku jira waa la baarayaa ciddii ka qayb qaadatay maxkamaddu ay mutaysanaysaa waa dadka halkaa ka xiran matalan dumarka oo kale hadda wada xiran gacan ku dhiignihii wuu xiran yahay ciddii kale oo ciidan ahayd oo gacan siisayna baaritaan dhammaystiran bay u baahan tahay iyaga laftigooda xabsiga lama geyn laakiin 4 hay'adood baa loo xilsaaray oo baaritaanka soo gabagabaysa waxay mutaystaan bay sharciga keenaya gabadhii khaaska arrintu ay uga dhacday kuwa kale xabsi xalaalayn baanu hadda u wadnaa hal bila wixii halkaa ka dhacay oo dhan qardo in loo dhaadhiciyo shabaqle la saaro waa meesha rabshadii ka dhacday dumarkii ah gabar khaas ayaa fidmada gaar u lahayd waa laga reebayaa maxkamadda iyaduna ka mutaysanaysaa sharciga waxay ka heshay horta sidaasaa dawladdu iyo nidaamku u shaqaynayeen wax ka qarsoonna ma jiraan marka waxaan haddaanu halkaan hadda aynu isugu nimi waxaynu aasnay marxuumkii baynu aasnay sargaalka ah in lala sugo nidaamka iyo sharciga in lala sugo meeshuu wax ku soo gabagabeeyo fitin kale iyo dhibaato kale ayaan dhicin haddana cid kastoo arrintaa ka qayb geysatay ay dhadhamiso waxay ka qayb geysatay waxay tahay ninkaan sargaalka ahi wuxuu ku dhintay isagoo raba shaqo qaran inuu qabto shaqada qaranka uu rabay inuu qabto kuwa dawladdii ku jiro inay isaga caawiyaan rabay sida sharcigu u dhigayo isagaa la rabay inay caawiyaan maadaamuu shaqo qaran ku jiro ayaa iyagu waxay uga hor yimaadeen inay shaqadii qaranka ninkii ka shaqaynaya ku dilaan waa garan ka dhaan moogta arrintaas intay la eg tahay laakiin waxaa la rabaa tallaabadii in la qaado tallaabadii ku habboonayd oo sharci in la qaadaa la rabaa cid walba dembigay gashatay inay la helaan rabaa annaga waxaa naga go'an ka mas-uuliyad ahaan in arrintaas qof walba intuu ka geystay inuu qaato baa naga go'an marxuumkana waxaan leeyahay waa la cafiyey ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu jannada geeyo ilaahay inuu jannada geeyo ilaahay inuu jannada geeyo waalidkii uu ka dhintay iyo dhammaan reer Puntland buu ka dhintay ninkaan shaqo qaran bahay iyaguna ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo inagoo dhan samir iyo iimaan ilaahay naga siiyo kulligaan waan dhimanaynaa qof dhulkaan ku waaraya ma jiro laakiin qofba sibuu u dhimanaya marka ilaahay waxaan ka cabsanaya ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa dariiqa xun ku dhintay ilaahay inuu sanaga dhigo Maymuun Cabdirisaaq Khaliif TV-ga iyo idaacadda SBC Garowe wafdi balaaran uu hogaaminayo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan ayaa maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug Cabdullaahi Maxamuud Aadan Cabdullaahi Yare ayaa warbixintiisa Gaalkacyo ka soo diray garoonka diyaaradaha ee Cabdullaahi Yuusuf ee magaalada Gaalkacyo waxaa maanta ka soo degay wafdi hogaaminaya Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ah gudoomiyaha guddiga badbaadada qaxootiga ka imaanaya Yemen ee fadhigooda yahay magaalada Muqdisho caasimadda wadanka Soomaaliya waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta guddiga taakulaynta qaxootiga Yemen ee Puntland iyo maamulka dawladda Puntland ee gobolka Mudug kan degmada ee kan gobolka ee saraakiisha booliska gobolka
wafdigan ayaa soo dhoweyn lagu sameeyay hotel Sugulle Gaalkacyo waxaana soo dhoweynta ka qayb galay mas'uuliyiinta guddigaasi iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiinta dawladda ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug ahna kusimaha gudoomiyaha gobolka Axmed Muuse Nuur Yare waxaan maanta halka ku soo dhoweynaynaa wafdi ka yimid Muqdisho oo culimo ah iyo madax isugu jira oo hogaaminayo Sheekh Nuur Baaruud Gurxan oo ah gudoomiye ku-xigeenka gudoomiyaha guddiga badbaadada qaxootiga Soomaaliyeed iyo wixii taakalo u baahanba waxaa kaloo ka mid ah qonsulkii hore oo Cadan Xuseen Xaaji waxaa ka mid ah Sheekh Aynte oo ahaan jiray mar xildhibaan noo soo dhiibaan oo qaxootiga waa naga taakuleeyaan qaarna qarax bay noo soo dhiibaan oo ciyaal ay tababareen iyo qarax ay u soo dhiibaan bay isugu kaaya daraan marka qolo walba Ilaahay baa kala xisaabtamaysa kullu dad muslimiin aanu nahay qoladii waxna siisaana ajar bay ka heli doontaa iyo Ilaahay inuu iyaga lafto xukunkooda u barakeeyo qoladina dhibaataysan dib bay kala kulmi doontaa baan u maleynayaa كل دمانتي سود وهذا ندين الله Sheekh Maxamed Macalin Axmed oo ku hadlay magaca mu'aasasada Al-Minhaj ayaa waxa uu ka hadlay soo dhaweynta wafdigan Muqdisho ka yimid guddigu horay waxay uga qayb qaateen gurmadkii qaxootiga loo sameeyay dhinacyo badanna waa uga qayb qaateen lacag kaash ah waa u soo direen oo guddiga qaxootiga ee Boosaaso jooga ee Puntland ay kala wareegeen aad bay arinta ugu mahadsan yihiin waana uga mahad celinay horay haddana waa uga mahad celinaynaa waxay sidoo kale soo direen markab muxsin oo walaalkeen ah oo Soomaaliyeed uu leeyahay laakiin guddigu ay iyagu hawshiisa iyo soo diridiisa wixii soo dhan lahaayeen markabkaasi waa markii afraad oo hadda uu dadka soo wado Boosaaso hadda ku soo aadan yahay waxaa loo maleynayaa dad ilaa 3,000 inuu meelaha wado Sheekh Nuur Baaruud Gurxan waa gudoomiyaha guddiga badbaadinta iyo taakulaynta qaxootiga Yemen ee fadhigooda yahay Muqdisho ayaa ka hadlay ujeedka socdaalkooda iyo dad walaalo ah tihiin dad Soomaalinimada ka runtahay baa tihiin marxaati waxa uu ah qaxootigan kumanaanka ah oo Boosaaso ka soo deganaya oo qalbi furan ku soo dhaweynaysaan naf iyo maalba aad u horteen afar ilaa aad saa u taagan tihiin haddaad noqon lahayd haddaynu ahaan lahayd guddigii culimo maamulka dawliga oo madaxweyne Cabdiweli oo hogaaminaya usbuucyadii la soo dhaafay dekada Makha on xiriir la sameynay oo ay joogaan dad ganacsato oo Soomaali oo fiican iyo niman Yemeniyiin oo xoolaha ka ganacsada waxaan ku guuleysanay inay dad ilaa dhowr kuna inay barbarageeyaan oo doomaha keenaya badeecada iyo xoolaha iyo ay saaraan marka arintaas oo runtii meel fiican maraysa ayaa Soomaali dib lagama waaye nin qunsulka Cadan ku magacaaban oo aad u rabay meeshaas inuu mashruuc ka sameesto annaguna aan ku garanay oo ka diidnay yaa fadqalala nagu wada wuxuu kulba meel ka dusaba hadda wuxuu ku guuleystay nimankii dekada Makha jooga inuu yiraahdo yaa idin dirsaday hawsha waxba ha qaadina oo hadda dadkii la qaadayay halkaas ay ku hakato ku-xigeenka qonsulka Soomaaliya dalka Yemen Xuseen Xaaji Axmed oo kamid ah wafdiga Muqdisho ka yimid ayaa ka hadlay dadka ka imaanay xagaasi nin Cabdul Jabbaar ilaa Makha joogo dadka ganacsada yaqaanaan ayaa maalintii ciidda ka dambeysay dad meesha ku go'doomay oo 1500 oo barbara u qaaday dad baa weydiiyay yiri maxaa Soomaali wuxuu yiri aniga waxa ugu filan buu yiri reer Qardho dhulka ay siiyeen iyo meeshay dajiyeen oo aan idaacadaha ay ka dhageysto lii tarjumay intaas miyaan ka abaal gudi waayay bilool 1500 oo qof oo Soomaali qaadi waayay wafdigani ayaa waxaa soo dhaweeyay mu'aasasada Al-Minhaj waxaana ay tagi doonaan magaalada Garowe caasimada Puntland ee uu ku hakan doono magaalada Qardho tagi doonana xirada ay ku xareyseen dadka qaxootiga Yemen ka imaaday waxaana inta kadib ay tagi doonaan magaalada Boosaaso Cabdullaahi Yare TV-ga iyo idaacadda SBC magaalada Gaalkacyo howlgallo lagu aruurinayo hubka sida sharci darada loogu dhaxwato magaalada Cabudwaaq ayaa maanta ka bilaamatay magaaladaasi Mahad Bashiir ayaa warkani Cabudwaaq nooga soo diray
howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga degmada Caabudwaaq ayaa maanta ka bilowday magaalada Caabudwaaq. Howlgalladan oo ujeedkoodu ahaa in lagu ururiyo hubka sharci darrada ee lagu dhex wato degmadaasi Caabudwaaq. Ciidankan ayaa ah ciidan loo xilsaaray wax ka qabashada amniga deegaanka oo ay horkacayeen guddiga amniga deegaanka. Howlgalkan ayaa waxaa ka warbixiyay taliyaha ciidamada amniga gaashaanle sare Dubbad asagoona sheegay in ay xaqiijiyeen amniga deegaanka. ayaa ilaahay wuxuu ku gooleeyay ayagoo kaashanaya shacabkooda iyo shacabkooda isku ayaa ilaahay wuxuu ku gooleeyay amnigeedii saacadan hadda aan joognana waxa weeye wax qoriya iyo wax mooryaana oo dhex socda midna ma jiraan ilaahay ayaa fadligaas iska leh insha Allah waxaan rajaynaynaa waxa dhiman anagoo oo iskaashanayna howlgalkan ayaa laga dareemayaa guud ahaanba deegaanka Caabudwaaq iyadoona aad arkaysid dad laga aruurinayo qoryaha iyo weliba hubka noocihiisa kala duwan. Mahad Bashiir Cismaan TV-ga iyo idaacadda SBC Caabudwaaq. maamulka gobolka Hiiraan iyo taliyaha booliiska magaalada Beledweyne ayaa maanta waxa ay booqdeen xarunta rugta booliiska ee xaafadda Hanti Wadaag ee magaalada Beledweyne. Wariyaheena magaalada Beledweyne Cismaan Aadan Carays ayaa faahfaahinta warkani inoo haya. kormeerkan ay mas'uuliyiinta maamulka gobolka degmada taliyaha saldhigga booliiska magaalada Beledweyne ay ku tageen rugta booliiska ee xaafadda Howlwadaag ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan kadibna ay si buuxda ay u wada sheegeen dhammaan mas'uuliyiinta in haatan wixii ka dambeeya ay xariga ay ka jareen howlgali doonto xaafaddaasi Howlwadaag ee magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. ugu horeynta halkaasi waxaa ka hadlay taliyaha saldhigga booliiska magaalada Beledweyne Cali Dhuux Maadalla kana warbixiyay baahida ay u qabaan shacabka in la furo rug booliis. maamulkii heer gobol iyo heer degmo waxaan maanta halkan uga dhawaaqaynaa ka furaynaa rug booliis oo la yiraahdo rugta booliiska xaafadda Howlwadaag ee degmada Beledweyne. waxaan dareemaynaa in muddo badan hadalla ay jireen oo qaabka rugtaas loo dhisaayo iyo waxaas warar ka baxbaxaya. waxaas waxaan maanta laga bilaaban ka soo qaadaynaa war xunow lagu waa inay tahay. waxaan ka soo qaadaynaa in saxdii aan wada la maray. waxaan ka soo qaadaynaa in meeshaan baahi loo qabay in laga aas-aaso booliis magaaladu maadaama ay baahday. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Beledweyne Macalin Khalaafo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan arrimaha maamulka iyo maaliyadda Khaliif Cabdi Cumar. intaa kadib waxaan salaamayaa maamulka gobolka guud ahaan iyo maamulka degmada saxaafadda reer Hiiraan ee degmada Beledweyne ciidamada kala duwan nabadgelyada booliiska asluubta militariga halkan taagan. waxaa maanta farxad weyn oo ah annagoo sarfay ku sameynayna qaybihii laga furi lahaa ee rugtii muxuu ahaa degmada Beledweyne maadaama ay ballaaratay magaaladan Beledweyne oo xaafadii ay la ekaaday degmo. haddana insha Allah tacaala ayadoo hore aan u cilaaminay in laga furi doono rug oo lagu baaro dadka militariga ah ee loogana dhawaado waxyaabaha xukunka xaafadaha ay ku sameynayaan maadaama xaafadu ay ballaaratay. waxaan bilaab ka dhignay xaafadda Howlwadaag ee degmada Beledweyne in rugtii koowaad ayada laga dhigo. rugta booliiska ee xaafadda Howlwadaag waa sharci u furan tahay way furneyd si sharciyan ah ayaa maanta taliyihii saldhigga booliiska ee Beledweyne ahna kusimaha taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan iyo dhammaan maamulka waxay ku wada yimaadeen in officially loo furo shaqayna hayeen shaqadoodii inay sii laabaan kaliya si farsamo ah ayaa saldhig farsamada waxa la isla gabsanaya kaliya saldhig masarug laakiin ma aha in laga soo horjeedo hay-adaha amniga in la ballaariyo waxay ahayd saldhig aa lagu magacaabay sharciyanna saldhig degmo kasta waxay leedahay hal saldhig sida uu sharciga booliiska qabo. waxa kale ee loo baahan yahay oo xaafadaha laga furayana waa rugo. ugu dambeyntii waxaa soo gunaanaday gudoomiye ku-xigeenka gobolka Hiiraan arrimaha amniga Maxamed Ibrahim Cabdi.
si sharci ah maanta halkan waxaa inaan ugu furno rabnaa rugta xaafadda holwadaag ee booliska waxaana leenahay si sharci u furanta xaqiiqdii gudoomiyaha degmada iyo taliyaha fadhiga waxaa kula dardaarmaa xaafadaha kale sidaan hore inay soo dejiyaan si loo helo ammaan ku filan xaafadaha xaqiiqdii waa ka gaabin mar hore ay ahayd inaan xaafadaha dhan ka wada furno laakiin waqti walbaba xaalad walba waqtigeeda ay timaadaa waxaan leeyahay marka waa la dardaarmaa ayaga nabadooda inay si fiican ugu shaqeeyaan arrinkaas si oo maamulka gobolka ayagana mar walba ugu daba xarin oo u taageero kama waxraayaan ayagana laakiin waxa waaye hawsha inta badan waxay ku dhacayso waa degmada iyo saldhigga booliska xaqiiqdii waxaan rabnaa ayagana inay si fiican ugu istaagaan kormeerkan ayaa waxa uu qayb ka ah kormeer mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiraan ay ku tagayeen goobaha kala duwan ee magaalada beledweyne taas ay u kurgalayeen ayna socdo dadaal ballaaran ay ku aadan in rugyo booliis laga furo xaafadaha kala duwan ee magaalada beledweyne maadaama magaaladu haatan ay ballaaratay cismaan aadan carays idaacadda iyo telefishinka SBC beledweyne hay-ad khayriya ee laga leeyahay waddanka imaaraadka carabta ayaa maanta deeq waxa ay ku wareejisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha puntland oo ah gudoomiyaha guddiga dadka ka soo laabanaya dagaalada ka soconaya dalka yeman si uu u gaarsiiyo dadka qaxootiga ah ee ka soo laabanaya yeman yuusuf maxamuud yuusuf wariyaha SBC ayaa warbixinta warkan inoo eegaya wasaaradda arrimaha gudaha dowladda Puntland ayaa maanta deeq ka timid dowladda Imaaraadka Carabta kala wareegtay hay-adda la yiraahdo Khaliif bin Sayid Al Nahyan taasoo dhan 420 tan deeqdaasi munaasabada deeqda lagu wareejinayo oo lagu qabtay dekedda magaalada Boosaaso waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin oo kamid ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee horumarinta reer miyiga agaasimaha ciidanka badda Puntland iyo waliba saraakiil kale Cabdirashiid Cabbaas Cali oo ah wakiilka hay'adda Khaliif bin Sayid Al Nahyan oo goobtaasi ka hadlay ayaa sheegay in deeqdani loogu talagalay dadka danyarka ah ee ku dhaqan deegaanada Puntland iyo waliba kuwa ka soo cararay dagaalada Yemen waxa uu sheegay in deeqdan raashinka ay ka kooban tahay ilaa iyo 420 tan isagoona ballan qaaday inay si laba jabaari doonaan caawinta ay u sameynayaan dadka walaalahooda ee dhibaataysan Nahyan waa hay'ad khayriya oo Imaaraadka laga leeyahay waa mahad ilaahay maanta waxaana soo gaaray raashin mucaawina inagu tala gashay dowladda Imaaraadka isutaga Imaaraadka iyo khaas ahaan hay'adda Sheikh Khaliif bin Zayed Al Nahyan raashinkan waxa uu ka kooban yahay 420 tan waa raashin isku jira oo mixed food waxa loogu talagalay dadka tabaaleysan ee Puntland hay'adan ma aha markii ugu horeysay ay khayriyaad noocaas ah noo fidiso way sii wadi doontaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Puntland Cabdullaahi Xaashi Qoobdeero ayaa isagana dhankiisa ka mahad celiyay deeqdan ka timid dowladda Imaaraadka Carabta Cabdullaahi Saalax Qoobdeero ayaa ballan qaaday in deeqdan sidii loogu talagalay u gaarsiin doonaan 9 gobol iyo waliba 40 iyo waliba 3 degmo oo ka tirsan Puntland waxaan u mahad celinaynaa dadka Soomaalida ah mas'uuliyiinta hawshan waxaan mar labaad iyo saddexaad u mahad celinaynaa dowladda Imaaraadka iyo hay'adda na soo gaarsiisay deeqdan cuntada ah sida la sheegana maanta kaliya ma ahan hore waxa loo soo gaarsiin jireen Puntland waa dad kari kara inay si ammaan ah inta wax lagu keeno si ammaan ah shacabka u gaarsiin kara 9 gobol iyo 43 degmo ay ka kooban tahay Puntland ilaa 91kii waxa ku soo qalqalayay sida la socotaan dad qaxooti ah oo gobolada Soomaaliya ka imaanayay agaasimaha guud ee ciidanka badda Puntland Colonel Cabdiraxmaan Maxamuud Xaaji Xasan ayaa sheegay inay ka rajeynayaan Imaaraadka Carabta in Puntland ay ugu deeqaan deeq noocan oo kala ah isla markaana waxa uu sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay markaas garab taagan tahay walaalahooda dhibaataysan ee ku sugan deegaanada Puntland uu sheegay Cabdirashiid oo ka timid dowladda Imaaraadka waxaan uga mahad celinaa sidii ugu mahad celiyay waa u mahad celinaa mar labaad ilaah baa mahad koobaad iskale mahad labaad waxaan celinaa dowladda Imaaraadka oo walaalahaya oo deeqdan ku deeqday iyo mu'assasada maartay Sheikh Khaliif bin Zayed Al Nahyan وأصدق سامارتي على دخل ساعة ريد بونتلان ودقي أنا وحنا ما إن شاء الله كل جدونا على ولد بونتلان ووكيل وكي هاي هذا ونلجوا وسمعين وزارة أرينها جودها مركا مرة بعد مركا لما وحنا ما علينا دولة الإمارات هي أبدا كل دقي
deeqdan joogtada ah ay siiyaan shacabka walaalahooda reer Puntland. si kastaba ha ahaatee deeqdan ka timi imaaraadka carabta ayaa qoysaska loo qaybinayo waxa ay noqonaysaa mid ka kaafisa noloshooda iyadoo imaaraadka carabtana ay markasta garab taagan tahay walaalahooda dhibaataysan ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso iyo waliba deegaanada Puntland. Yuusuf Maxamuud, telefishinka caalamiga SBC, Boosaaso. dagaal sabay dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta ka dhacay deegaanka Kalabeed ee gobolka Sool. maamulka Khaatumana waxa uu ku baaqay in dagaalkaasi la joojiyo. wariyahana Sadaam Cabdullaahi ayaa warkan inoo eegaya. maamulka golaha deegaanka degmada Buuhoodle ayaa shir jarayd oo maanta qabteen waxa ay baaq nabadeed ugu direen beelo walaalo ah oo ay diriir ku dhex martay deegaanka Dharkeengeeyo oo qiyaastii 85 kiiloomitir dhanka koonfur bari ka xiga magaalada Buuhoodle. dagaalkan oo geystay khasaare nafeed ayaa waxa uu dhex maray beelo walaalo ah oo wada degan deegaanka Dharkeengeeyo. Xarunta deegaanka Buuhoodle waxaa maanta ka baxay wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo garaadka guud ee gobolka Cayn Garaad Arsaaq Garaad Soofe oo uu ka mid yahay Garaad Salawaan Bulaale Aadan Dan Cali Sheekh iyo wax garad aad u tiro badan. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. waxaan baaq nabadeed u diranaa beelaha ay kala gaadheen waxyeeladu ee beesha Bahar Same iyo beesha Khayr Cabdi ee dhibaatadaas halka ay ku soo kala gaadhay. baaq nabadeed baan u diranaa. bacdal salaan waxaanu ka tacsiideynaa hawshii ka dhacday Dharkeyn. waan u diranaa tacsiid tiiraayo leh dadkii ku dhintay Dharkeyn. waxaan leenahay dadkaas waa dad laga dhintay. ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu samir iyo iimaan naga siiyo, iyagana u naxariisto, naxariistiisa janno ugu deeqo. ehelkoodii iyo qaraabadoodii iyo ummaddii ay ka dhinteenna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. inta dhaawacaana waxaanu leenahay ilaahay inuu u boogadhayo oo u khafiifiyo dhaawacaa soo gaadhay. ilaahay baanu iyagana uga baryanaa. waxaan leenahay dagaal wiil kuma dhashay wiil baa ku dhinta. waxaan leenahay dagaalka joojiya. waxaan leenahay midnimada ku dadaala. waxaa lagaga cabanayaa beelahaas oo soo noqnoqday inaynan u qabsoomin dadka ehelka ah ee u soo gurmada. halkan gobolkan maanta waxaa ka tegay isimadii, cuqaashii, culimaaudiintii, waxgaradkii. waxaanu leenahay dhibaatada ilaahay intaa ha nagaga xakameeyo, annaguna waanu ka xunahay. maanta waxaanu diraynaa baaq nabadeed oo ku saabsan arrin shalay ka dhacday magaalada Dharkeengeeyo. magaalada Dharkeengeeyo hawl shalay ka dhacday baan arrintaa rabna isugu nimid annaga oo ku hadlayna golaha deegaanka degmada Buuhoodle iyo gobolka Cayn iyo shacabkooda ka turjumayna baaqa nabadeed. waxaanu ku raacsanahay oo aan kala mid ahay baaqan odayaasha iyo gudoomiyaha. sidaa darteed masaaka waxaanu soo amal bixinay haddii aanu nahay gobolka Cayn wafdi heer qaran oo hogaaminaya garaadka guud ee gobolka Cayn Garaad Arsaaq Garaad iyo Suldaan Cali Sheekh iyo isma fara badan iyo xuqaar ay ka mid tahay. waxaan ka codsanaynaa oo la qabaa odayaashii ugu horreeyay in loo dhiga nuglaado cid kasta oo nabadda ka shaqaynaysa. Soomaaliduna waxay tiraahdaa laba reer oo aan walaal ahaan bay tiraahdaa waa walaale. labada reer waa laba si dhalashada iyo deegaanka iyo islaamnimadaba ku walaaloobay. marka waxaan leenahay inaad u hoggaansataan haddii odayaasha iyo waxgaradka idin yimaadaan meel kastaba ka yimaadeen. waxaan idinka codsanaynaa inaad dhiga nuglaataan in colaadda la joojiyo. waxaan baaq nabadeed u diraynaa beelaha walaalaha ah oo ku dagaalamay Dharkeyn shalay. ciidamadooda ay kala fadhiyaan labada dhinaca magaalada. beelahaas oo isku mid ah oo aanu leenahay qofka ka dhintay iyagu ka dhintay waana ku dhintay. baaq nabadeed baan u diraynaa annagoo ku hadlaynaa bulshadan gobolka Cayneed gobolka Cayn oo ah golihii deegaanka. waxaanu leenahay dadka walaalaha ah oo meesha ku dagaalamay oo dagaalkooda soo noqnoqday caqligu ha shaqeeyo. dadkii dhintay oo hore u dhintay lama hayo, kuwii shalay dhintayna lama hayo. haddaan dagaalka la joojina kuwa kala dhimanaya. Sadaam Cabdullaahi Cabdi, wararka TV-ga caalamiga ee SBC, magaalada Buuhoodle. dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa sheegay inay martigelinayaan koobka tartanka kubadda cagta ee gobolada Somaliland.
wariyaheena Axmed Diiriye Ciil Tire ayaa faahfaahinta warkani Boorama nooga soo diray. iyadoo dhawaan wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Somaliland uu si rasmi ah u shaaciyay in tartanada ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada Somaliland lagu qaban doono gobolada Togdheer iyo Awdal kuwaas ay martigelin doonaan. maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama ayaa abaabul xooggan ugu jira sida ay u martigelin lahaayeen tartanka kubadda cagta ee gobolada Somaliland. haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Boorama ayaa iyagu ka hadlay aragtidooda ku aadan martigelinta tartanka ciyaaraha gobolada Somaliland ee gobolka Awdal. bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo magacayga Xuseen Khadar Dacwi waxaan si gaar ah soo dhaweynayaa koobka lagu qaban doono gobolka Awdal anagoo gacmo furan iyo welcome ku soo dhaweynayna martigelin aan si fiican u soo martigelinayno. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdifataax Cabdilaahi rayga lagu wada doonaa hadii aan isku dayo fikirkayga wallahi koobkan lagu qabanayo gobolada Soomaaliya dam muhiim u yahay gobolkan Awdal waayo waxaan garanayaa xulkii gobolada 2016 waxaan dhalinyaradii ka mid ahayd gobolka Awdal ee Hargeysa u tagtay waxaan ogahay faa'iidada ugu jirta gobolada waayo waxa ganacsiga badanaya suuq balneeyay maalgashi baa imanaya raxiim anoo ku bilaabay magacayga maxaa Cabdi fikradaada weydiisay maxay soo kordhinaysaa ciyaaraha lagu qabanayo gobolku waan soo dhaweynaynaa waxayna keenaysaa isdhexgal badan oo xagga bulshada oo dhalinyarta imanaysa dhalinyarta gobolka magaalada Boorama waxaan ku buurinaynaa dhalinyarada dadka reer Boorama in ay martida iyo dadka halka imanaya si wanaagsan soo dhaweeyaan inay ka qayb qaataan waa horumar dhinac kasta leh kasatana ganacsatada anaga waa noo fiican tahay bayna iibsanayaan marka waxaan leenahay mar walba soo dhawaado gacmo furan baa lagu soo dhaweynaa gobolkana waxaan leenahay in gobolka sumcadiisa iyo la ilaaliyo waxa weeyaan isboortigiisa aad bay muhiim u tahay وانا markii koob gobolada saddexaad oo ka baxay Hargeysa markii Hargeysa oo ka baxay Barcutigi wala markii oo ka yimid waa kan awdal yimid marka saasaan ku nahay magaalada saddexaad ee lagu qaban doono aad iyo aad u wanaagsan. bismillaahir rahmaanir rahiim anu waxaan leeyahay koob gobolada ee Boorama lagu qabanayo qayb kamid ah waxaan leeyahay waa bal la soo daahay waxay waa horeen lagu qabto imikana waxaan leeyahay waa soo dhaweynayna waayo dhalinyartu waxay ka qaadeen dhiirigelin taariifka ku yaraanaya مخادراتك في أنا وحياة بدن بينك قبل نساء فكان حلا هاي سود وهذا قبل كعوض اللي يدك تدقنا حنا باقية هنا كقيب قاعد. وايد إن بدن بسوي قبل كعوض وايد إن بدن بامارته قبل كعوض هو حق ولا حق إنه وقت وايد هو الجرام هو هيستغرام في عم بايستان سودوين في عم بايستان وايد قرش بدن ما كسر كلام قبل كعوض. قبل هذا تقدر يو أوضل خاصة قوة أوضل كنتي وحوالها قولها قار قولها قار كويلة جاري إيه يجين أي سبب واقع كنتي وحصل سؤال ده يسوي دولة يعني يرقى هاي قبل ده خلنا كيف نسا يكون ولا runtii koobka gobolada lagu qabanayo fikirkayga hadaan ka dhigtana waxa weeye waxa lagu qabanayo waa isla reeb qaybta galbeedkana waxa ciyaaraysa gobolka Awdal bariguna waxa ciyaaraya barco inkastoo anagu jeclaan lahay in sanadkan sida uu leeyahay koobka gobolada la keeno gobolka Awdal Boorama waa markii ugu horeysay ee tartanada ciyaaraha kubadda cagta ee Somaliland qayb ka mid ah oo gobolka Awdal martigelinayo. Axmed Diiriye Ciil Tire telefishinka caalamiga ee SBC magaalada Boorama. daawadayaal intaasi ayaanu ku soo afmeeraynaa warkii telefishinka SBC oo idinkaga imaanayay wartabiyaha koowaad ee telefishinka SBC uu ku leeyahay magaalada Boosaaso anigoo Xamse Cabdirashiid Jaamacadaaniya ayaa warka idin ambaqaadayay warka xiga intaanu dib isugu arki doono waa aniga iyo asxaabtii kala gadsaneed ee warkayga la qayb gashay oo dhammaantood idin leh nabadino salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.